shirkii hadda ugu dambeeyay ee golaha wasiirada shirka degdega ahaa oo ra'iisul wasaaruhu gudoomiyay waxaa laga qabtay guddi loogu talagalay in loogu gurmado dadkii walaalaheena ahaa oo hadda 120 maraya qaraxa ku waxyeeloobay kuwii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay oo runtii dad aad u fara badan ah ballan qaadadii sida kala socoteen media sa kala socoteenna dawladdu waxay ballan qaaday in maaragtay caruurtooda dadkii dhintay waxbarasho bilaasha ay dawladdu siinayso waxay ballan qaaday dadkii dhaawacmay in bilaash lagu daaweynayo waana socotaa guddi heer qaran ah ayaana la qabtay oo golaha wasiirada laga dhex qabtay waxaa la rabaa marka maadaama xafiiskan uu yahay xafiiskii xukuumadda ugu sarreeyay iyo golaha fulinta xafiiska ra'iisul wasaaraha in maaragtay sida hadda wasaaradaha kaleba ka socota isku duubni inta la muujiyo loo gurmado dadka walaalaheena oo qaybtii aan ku yeelan lahayn maaragtay laga shaqeeyo lagana qayb qaato wasaarad kasta maanta ka socotaa hay'ad kasta oo dawladeed bay ka socotaa gurmadku marka waa la tartamayaa tartanka yaan la inooga dheerayn horta taas waa midda kale waxaad ogaataan nimankii waa carareen waa jabeen hadda iska reeb bay ku jiraan waa kuwa buundooyinka marka ay jabaan buundada bamka ku sii reebaya oo jabinaya buundada si aan loo dabagelin raacda reeb ahaan oo kale tanna hadda meelaha waxyaabo ugu qarqarsoonaa guryaha ugu jirjiray ugu dambeyntii bay rabaan inay dad ku galaaftaan muhiim ma aha maarta inaad barooratid muhiim ma aha inaad maalin walba aad tacsiyeysid waxaa muhiima meesha laga soo duulayo meel kale kamaysan imaan dadkan guryaheena ka yimaadeen guryaheena inaan kala dagaalano oo isan geerashka aan leenahay aysan ka soo abaabulin oo isan ka soo abaabulin guriga aan leenahay oo gabadha aan dhalay iyo wiilka aan dhalay iyo aabaha aysan u dhiiban oo xoolaha aan la siin xoolaha la siinaya dadkan waxa siinayana waa anaga waxa lagu oranayaa waa lagu $200 baa qaadataa ha haddaadan 230 aadan bixin 50 aadan bixin waa ku dilaynaa axsan aniga idila intii aad $50 aan baxshay 100 qof ku dil lahaydeen ummaddu waa inay baraarugaas ay qaataa fahamkaas waa inuu yimaadaa waxaa marka la rabaa guddiga sida loo qabtayba guddiga inay shaqeeyaan wixii taakula ah qofkii maradiisa bixin kara qofkii shilinkiisa bixin kara qofkii raashinkiisa bixin kara qofkii qadadiisa bixin kara qofkii cashadiisa bixin kara in la baxsho qofkii gacantiisa ka tagi kara maxaan ku yiraahdaa isbitaalka qada geyn kara qof maaragtay ahel iyo qaraabo ah oo ku dhibaataysan oo wax ku gaareen ka qayb qaadan kara oo ka qayb qaato wixii kale oo taakula ah hay'adda maareynta masiibooyinka ayaa lagu aruurinayaa istooray leedahay haddii raashin la bixinayo iyo haddii dhar la bixinayo haddii agab kale la bixinayaba wakaas wixii xoolaha dhaqaalaha ana guddiga inoo qaabilsan baa insha Allah inoo qabanaya aad iyo aad baa runtii u mahadsantihiin inaa halkan taagan tihiin annagu waa dhididaynaa laakiin walaalaheen dhiig baa ka daatay qaarkeen maar laga yaabaa inay dhididkan uu dhibayo caafimaadkooda laga yaabaa inuu dhib ku yahay laakiin dadka aan soo aragnay ra'iisul wasaaruhu markuu booqanayay waa la soconay aan isbitaalada ku soo aragnay dhidid iska dhaaf dhiig baa ka dhamaaday ogaada marka maaragtay inaan isku duubmo oo hore loo socdo xafiisyada hadda qof walba markaa tagtid saacadaha 2 saacadood soo socota shaqada ummadda aad u haysay xoogga waxaa saartaa tan yaad la hadli kartaa oo nimankan meel ku og oo sheegi kara in la soo qabto har adigooda yaad la hadli kartaa oo raashin keeni kara yaad la hadli kartaa oo dhar keeni kara adiga gurigaaga maxaa yaalay saak oo maxaan ku yiraahdaa dadkan lagu taageeri karaa ciidamadeena geesiyiinta ah oo hadda daba socdo oo cayrsanaya in la taageero horaan u soconaynaa nama niyad jabin karaan waa ka aaraynaa waa ka aarsanaynaa insha Allahu tacaala waxaana rajaynayaa maalinteeda maanta waa ayaanma talaada nimankii cararay oo qaar la qabtay iyo qaar isdhiibay iyo qaar islaamay ay inay noqdaan haddaysan noqonna bisheeda haddaysan noqonna sanadkan inagu daahimaa insha Allah inagu daahimaayaan aad iyo aad baa u mahadsantihiin abaabulkii maaragtay aad samayseen iyo isku tashigan hadda aan samaynayno iyo gurmadka aad samaynaysaan aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxay ahayd runtii weerar argagax leh aad iyo aad u fool xun dhib badan dad badan ay waxyeelo ku gaareen naf iyo maal intaba dad badan oo walaalaheena maanta hooyooyinkeen oo kale aabayaasheen ah ay maanta murugaysan yihiin dhib badan ay ka soo gaartay marka waxaa loo baahan yahay inagana inaan dhibaatadaas
dadkaas la qaybsano muujino dareenkeenna wax alaal wixii aan ku caawin karna ku caawino haddii aan ahaan lahayd qof walba inuu inta uu haysto wax ka gooyo mushaarka uu qaato wax ka jaro dharka uu guriga u yaalay inuu wax ka hibeeyo oo ka geysto wuxuu ku tawaruci kara inuu sameeyo waan ogahay maalintii uu saas qarax u dhacay xafiiska ra'iisul wasaaraha marna kama nasan iyagoo aan si muxuu ahaa ku talagal ah loo abaabulin ayuu qof walba islaqaan sameeyey waa loo gurmaday isbitaaladii ayaa la geenayay muxuu ahaa cunto waxaa la geenayay sisiyeeri waxaa la geenayay go'yo waxaa la geenayay cabitaano waxaa la geenayay biyo howl aad iyo aad u fara badan runtii la qabtay kaa oo kasii ballaaran waxaan rabnaa in hadda abaabulkeeda loo galo la sameeyo walaalaheen ku dhaawacmay kuna muxuu ahaa waxyeeloo meesha in loo gurmadaan u baahannahay shaqaalahan waxaa loo baahan yahay laftigooda inay saa isku abaabulaan gabdhaha iyo wiilasha waqti badan iyo juhdi inay geliyaan sidii gurmad dhaba loo sameyn lahaa waana wax lagu yaqiina xafiiska ra'iisul wasaaraha hore loo soo bilaabay iyadoo aan la abaabulin ayayba hore u sameynayaan haddii si fiican loo abaabulan waxaan aaminsanahay wax badan inay qaban karaan marka maanta laga bilaabo inaan ka bilaabno inaan jeebkeeni wax ka bixinno guryihiini inaan ku laabano dadkana aan dhexgalno wax soo ururino dhexdeena ha ahaato ama banaayaha ha ahaadeen intaba in laga wada keeno si wax ku ool oo waxtarnimo leh oo ka baxsan yaboohii gaarka ahaa ee xukuumad ahaan ra'iisul wasaare xamse cabdi barre uu sameeyey marka laga soo reebo waxaa loo baahan yahay ka xafiis ahaan annaga maxaan ka geysan maxaan qaban inay noqoto mid mug iyo miisaan leh